PSG oo xasuuqday Real Madrid iyadoo iska xaadirisay finaalka koobka adduunka ee kooxaha. Kooxda PSG ayaa si la yaab leh 4-0 ugu garaacday Real Madrid ciyaartii afar-dhamaadka ee Club World Cup oo ka dhacday MetLife Stadium New Jersey fiidnimadii Arbacada. PSG ayaa si xoogan ku bilaabatay ciyaarta iyadoo 3 gool dhalisay 25kii daqiiqo ee ugu horeysay. Fabian Ruiz ayaa dhaliyay goolka koowaad daqiiqadii 6 kadib qalad uu sameeyay daafaca Real, wuxuuna mar kale shabaqa soo taabtay daqiiqadii 24aad. Xoogaa kadib Ousmane Dembele ayaa helay hadiyad kale oo qalad ah, isagoo goolka labaad dhaliyay daqiiqadii 9aad. Goolka afraad ayaa yimid qaybta labaad markii Gonzalo Ramos oo bedel ku soo galay uu soo gabagabeeyay ciyaarta. Difaaca Real Madrid ayaa lagu tilmaamay musiibo iyadoo qaladaad ay galeen ciyaartooyda ay ka mid yihiin Raul Asensio iyo Antonio Rudiger ay sababeen goolal fudud. Tababaraha PSG Luis Enrique ayaa ammaanay kooxdiisa oo ku tilmaamay mid xamaasad iyo ka faa'iideysi ku muujisay fursad walba oo ay heshay. PSG ayaa haatan la ciyaari doonta Chelsea Axadda iyagoo doonaya inay dhammaystiraan xil ciyaareed taariikhi ah oo 4 koob ah. Qodobkaas ayaa maanta mid ka naasarnaa barnaamijka bandhiga ciyaaraha. Haddii aad ila dhamaadka muuqaalka nala soo gaartay ilaawin inaad muuqaalka like saarto sidoo kale aad sii share gareyso. Haddii aad nagu cusubtahay nagu soo biir oo ka mid noqo asxaabta nagu xiran. Mahadsanid.